بسم الله الرحمن الرحيم واتي دورشدي inoo dhamaatay iyada xadaafiirteedii waxay wadtaba waa inoo dhamaatay alxamdulillaah laakiin waxa badan oo ka digaynay ayaa durba ifafaaladii soo baxaya waxa saaka airportka soo ka dhoofay lagu xidhay oo laga celiyay nin kamid ah qurba joogii u yimi xisbiga ayaa amar qabasho airportka loo dhigay waxa kale oo nagu maqaala dad kale in liiskooda meesha yaala waxyaabaha aanu ka digaynay waa taa durba bilaabatay ninka waxa lagu haystaa buugii komishanka ka lumay oo saxaafadda soo dhigay buugu been abuuray ma ahayn komishanka xilkiisii uu ku fashilmay bay ahayd in ceebtooda qarsadaan in maanta cid dacweeyaan ma ahayn xaq waxaan u lahayn maalinta buugaasi suuqa soo galay buugta kala soo gashayba inaanu ku adkaysano inaan komishanku hays casilo xaq baan u lahayn laakiin waxaanu soo nabadgelina khalkhal gelina doorashadana ha khalkhalanina waanu kala xishoonay inay maanta iyaga dacwoodaan oo yiraahdaan cid baad nagu been abuurtay horta waa ayaan daro waxay ahayd haddii maskaxdu shaqaynayso ninkii gobolka saaxil joogay ee buugagtiisii ilaa 5 kar waayay inuu markii bas casilee inay maanta iyagii daba socdaan ninkii buuga saxaafadda u seejeediyay ilaa waa wuxuu iyagoo kulmiyay hawshooda qabsan waayay dambi allayaal dambi ninkaas leeyahay ma jirto fadaxadoodu mudabada soo dhigoon inay ceebtooda qarsadaan oo maanta yiraahdaan war mar haddii xisbigii naga daba tagi waayay uu buugaa nagu dacweyn waayay nagu inaan dacwoonin taasi waa taa waxa kale oo jira dad shiciba oo hadday gadoodaan dhagax wax ka badan sidana ma taayir meel ku gubaan ayaa rasaas nool la dhacay waxay ahayd in maanta gudi qaran la saaro oo cidii amarka bixisay laga daba tago isbitaalka international royal buu nagu tagnay caruur yar oo rasaas ku yaalaan inana madaxa kaga taalo inana dhabar kaga taalo inuu maanta taliyay ciidankii bileeska xukumayay ee mashaqada ciidankiisu geystay oo meel walba kaga hanjabo gacan biraan cid ku qabanayna waa ayaan daro waxa weeye aqoon daro weyn baa ka muuqata war masiibada ciidankaagu geystay baaritaan ku samee askariga dadka hoosta ugu dhigay yaa amarka siiyay dhiiga dadka yaa xalaaleeyay dhiiga shacabka yaa idiin xalaaleeyay waxyaabaha xisbigana doonay inuu bedelo taasa ka mid ahayd dad shacab oo rasaas oo la dhaco waxyaabahanu uba soo galay siyaasadda ay ka mid ahayd in nidaamka caynkaas ee dhaqanka caynkaas ee noloshu dadku qiimo aanay lahayn ee ninkii bileeska ahaa amarka bixiyay shaashada isla soo taagayo gacan biraan wax ku qaban doona ee aanu gabanayn war waxaanu leenahay dalkan cagta loo dhigo aga juglayn iyo xarig iyo hanjabaad iyo caburin dadkan uu soo dhaafay dad lagu xukumi kara maaha waxaanu sheegayaa madaxweynaha loogu dhawaaqay yaanu bilowga ka xumaanin bilowgu yaanu ka xumaanin dhaqamadii hore jiri jiray ee lagu shaqayn jiray maanta adaa mas'uuliyadda leh wax ka bedel taliyaasha ciidamada shaashada soo fadhiisanaya shacabku u hanjabayana yaana dib ugu soo noqonin nin ciidanaad ahayd sarkaalka iyo jananka ciidanku inuu shacabku u hanjabo maaha hadday cid hadlayso inay wasaaradda arrimaha guduhu hadashaa isagu waa fuliye isagu siyaasadda dalka amniga gacanta kuma hayo siyaasadda amniga iyo qorsheynteeda waxa kule wasiirka leh taliyuhu waa fuliye inuu isagu halkaas soo fadhiisto ka hanjabo oo waliba taliyaha ciidanka qaranku ka hanjabo madaxweynaha maanta loogu dhawaaqay waxaan u sheegaynaa dhaqamada waa dhaqamadanu doonayna wax ka bedelo dhaqamadaasi kuwa u horeeyay wax ka bedeshaa noqoto haddii kale ku sii socoto uun siday ahaan jirtay waxaan kuu sheegayaa adii ummaddu 6 bilood isla gaadhi maysaan ma doonayna dalkan inuu khalkhal galo waxaanu doonaynaa dalkan inuu nabad helo waxaanu doonaynaa dalkan inuu badhaadho haddii laga bilaabo tallaabadii u horreysay dawladdaadu qaaday weli dawlad mabaad dhisina dee amarkaagu maanta adiga amarka leh wasiirka madaxtooyadu ma laha taliyaha ciidankuna ma leh kuguma wareegin
laakiin se aday ishaarada kaa qaadanayaan waagii markuu kuu baryaba haddii laga bilaabo in taageerayaashii xisbiga la ugaadhsado dee waynu ka jawaabi doonnaa ninka xukunka kursiga fadhiya isagaa nin walba ka nugul jaanis baanu ku siinaynaa grace period aad wax ku beddashaanu ku siinaynaa waannu ku amaahinaynaa waqti annu kaa aragno ifafaalahaaga waxaase ku tala gashaa inaanaan gacmo laabanayn oo in alliyaala intuu sharcigu noo ogol yahay ee dastuurku noo ogol yahay iyo wixii kale aanu xirfad ku keennaba inaannu kaaga hor iman doonno wakhtigaa yaree gaabanada haysato ee xisbiguna kuu samraayo aynu taageerayaasheedana gacanta ku hayno annu kaa aragno tallaabooyin dhaqdhaqaaqoo isbeddel keena oo weliba hay-adaha amnigaa wax ka qabato oo dadkaa xidhxidhan ee xisbiga loo xidhxidhay ee gobol walba ku jira xorriyaddoodii loo soo celiyo ee kuwaa dhaawacmay iyo kuwaa dhintayba magdhagoodii la siiyo wakhti yaroo gaaban baad haysataad wax ku hagaajiso intaanaan annagu shaqadeeda qabsan xisbi mucaarid aanu noqon doonnaa waxaannu u tanaasullayna waxaa weeye inaannu xisbi mucaarida noqonno mucaarid dhammaanaannu noqon doonnaa waxba laysu saarifi maayo muusow waxba laysula hadhi maayo aday kugu xidhantahay maanta hadba waxaad yeesho adaa midina daabkeeda haya sacab iyo gelbisa naga sugin haddaad talada la leexato waxaannu ku leenahay tallaabadaa khaldan ee qoladii kaa horraysay ay qabatay ee dadkii xisbiga lagu ugaadhsanaya xidhxidhan yihiin mas-uuliyaddaasi aday ku saarantay waanaannu kuugu eegaynaa waxaad ka qabato tallaabadaad qaaddana waannu eegaynaa ballan waxaannu kugu qaadaynaa haddaannu kaa aragno inaad wixii hore xumaa wax ka beddelayso inaannu kula shaqayno haddaannuse kaa aragno inaad sii hore ku soconayso ballan ilaahay waxaynoo ah inaannu hawl intaanu lahayn aanu qabsannay in dheeraadaba wasalaamu calaykum